qaladaadka ugu badan aan samayno waxay ka dhashaan hadal aan ka fiirsan iyo ficil aan u fiirsan. Assalaamu calaykum. Waxaan ahay Qaasim Maxamed. Ku soo dhawow muuqaal cusub. Mid ka mid ah aas-aasayaashii shirkadda IBM oo laga soo gaabiyey International Business Machines oo soo saarta adeegyada la xiriira tiknoolajiyadda sida qalabka iyo softweerada kala duwan ee loo isticmaalo IT-ga, lana aas-aasay 1911 kuna taalla magaalada New York ee dalka Mareykanka, ayaa darbiyada shirkadiisa ku dhejiyey kelmadda ka fiirso. Kadib wuxuu isugu yeeray dhammaan shaqaalihiisa, wuxuuna ku yiri marka aad la kulantaan mushkilad oo aad doontaan inaad go'aan ka qaadataan, xusuusnaada kelmaddan. Sidaas darteed ayaan rabaa inaan muuqaalkan kugu iftiimiyo muhiimadda ay leedahay ka fiirsiga ka hor inta aadan ku dhaqaaqin wax kasta. Qof kasta oo horumar muuqda ka gaaray nolosha maanta waa qof tagtadiisa u maareeyay si wanaagsan, kana soo fiirsaday go'aanada masiiriga ah ee noloshiisa ilaa ugu dambeyn uu soo gaaray halka maanta uu ka joogo nolosha. Yeelo dabeecadda ah ka fiirsiga hadal kasta ka hor inta aadan ku dhawaaqin, iyo u fiirsiga ficil kasta ka hor inta aadan samayn. Yeelo caadadan maanta kadib marka ay kula soo gudboonaato arrin qusaysa naftaada, taasoo saameyn doonta mustaqbalkaaga. Ugu horeyn inta aadan go'aan ka gaarin, ka fikir kuna dabaq xeerka ah 72 saacadood oo u dhiganta 3 maalmood oo ah inaad ka soo fikirto si aad u bixiso jawaab ama aad u qaadato go'aan aadan ka shalaayi doonin weligaaga. Si degdeg ah ha ugu dhawaaqin hadal weyn oo saameyn kara qalbiga qof kale, oo u fiirso ereyada aad ku dhawaaqayso adigoo kontaroolaya dareemaha naftaada, si aadan hadhow uga qoomamayn ereyadii aad ku dhawaaqday. Si la mid ah ha qaadanin go'aan adigoo aadan u fikirin una rogrogin dhan kasta, oo ha ku degdegin qaadashada go'aanada masiiriga ah ee saameynta ku leh naftaada iyo mustaqbalkaaga, si aadan hadhow isku ciilin, sidoo kalena aadan uga shalaayin. Marka uu qof kuu soo bandhigo arrin weyn oo kaaga baahan jawaab weyn inaad ka bixiso, ugu horeyn qaado waqti si aad ugu dabaqdo xeerkii ahaa 72 saacadood oo ka fikir ah. Marmarka qaar waxaa dhacda inuu qofka kugu qasbo ka bixinta jawaab arrin uu kuu soo bandhigay. Si fudud waxaad ku tiraahdaa aan ka soo fikiro. Haddii uu kuu ogolaan waayo ka fikirka iyo waqti qaadashadaada, waxaad si fudud ku tiraahdaa maya. Marba haddii aadan ii ogolayn inaan ka soo fikiro, jawaabteedu waa maya. Jawaabta aad bixin doonto ka sukow. Taasi waxay adiga kaa dhigaysaa qof go'aanada u qaata si caqliyeysan oo taxadir ku dheehan. Ugu dambeyn, xasuuso mahmaahdeenii ahayd ka fiirso inta aadan falin, si aad uga fogaato shalaytada iyo ciilka laga dhaxlo hadallada aan loo meel dayan, ficilada aan loo fiirsan, iyo go'aanada masiiriga ah oo lagu qaato si fudud. Hagaag, inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay ahow qof ku dabaqa naftiisa wax kasta oo faa'iido u leh naftaada iyo horumarkeeda. Aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Mahadsanid.